kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena qodobada daawanaysan waxa ugu waaweyn Mareykanka oo qaaday talaabo cara leh isagoo ka carooday waxyaabaha ka socda gobolka Awdal iyo deegaanada Somaliland talaabooyinkii ugu dambeeyay ee Mareykanku uu qaaday qorshaha degdega ah maxay tahay waxa soo kordhay dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeya ee taagan hadda xogii ugu dambeeyay macluumaad xasaasi ah sidoo kale waxa daawan doontaan wararka la xiriira dhaqdhaqaaqyadan hadda taagan iyo dhacdooyinka kale ee Mareykanku uu aadka uga carooday ee sababay in uu qaado talaabo aad u culus balse marka hore si aan faahfaahinta u guda galno waxaan ka dalbanayaa in muuqaalka aad noo share gareysid like saartid sidoo kale aad ka falcelisid qaybta aragtidana aad commentigaaga inoogu reebtid adigoo ka falcelinaya waxyaabihii ugu dambeeyay ee hadda taagan balse marka hore sidoo kale muuqaalkan meel fog gaarsiin rukumana barteenan Rais TV وهاجك أنجود قلنا مريكانكا أيا وح أي قادين طلابو أموقتا إني آد وعرودين دعدوين كواوين تاجن جرهان سومالي لان كتاجن أو كوكس بي سومالي لان قديدو إني بندو كسور ركتو ديجانا دا قبل كأوض القيبة كمدا سيدا بورما سيلا يجوبا كله أو أي بندو جالس كردجان تهين عن هب لجو ده استعمال كرين نيرها كاركود أو عيدا ما بدنا أي دول جيين وحاسدو كله sare loo qaaday diyaar garowga ciidanka dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay iyadoo oo la arkayay diyaarado drones ah oo markaasi qaarkood hawada sare duulayay si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeya iyo xaaladaha waaweyn ee hadda taagan xukuumaddu waxa ay qaaday talaabooyinkeedii ugu dambeeyay waxaana ay sare u qaaday oo ay kordhisay qorshaha degdega ah ee arrinkan la xiriira iyadoo oo si gaar ah ay markaasi hadda u qaadeen dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay macluumaadka la helayo ayaana muujinaya inay kordheen qorshaha xukuumadda Somaliland ee markaa aadka u xooganaa muddooyinkii la soo dhaafay iyadoo oo ay kordhiyeen sidoo kale dhacdooyinka taagan waxaana aad ay diiradda u saareen dhowr talaabo oo loo arkayo hadda inay yihiin talaabooyinkii ugu waaweynaa oo ay kaga jawaabayaan xaaladaha guud ee jira ama taagan xukuumadda marka laga soo tago dhaqdhaqaaqyada ay wado waxa dhinaca kale Mareykanku uu qaaday mid kamid ah talaabooyinkiisii ugu waaweynaa ama ugu cuslaa ee uu kaga jawaabayo xaaladda guud ee taagan taasi oo lagu tilmaamay hadda inay tahay mid kamid ah xaaladihii ugu cuslaa ee Mareykanku uu si degdeg ah u qaadayo isaga oo ka jawaabaya waxa uu Mareykanku ku dhawaaqay in uu si culus markaan uga jawaabayo dhaqdhaqaaqyada socda talaabooyinka ugu dambeeyay ee hadda taagan iyadoo oo ay diiradda saareen dhinacyadan kala duwan qorshahoodii ugu dambeeyay ee aadka isku soo tarayay iyo in ay markaasi xaaladdu gaartay heer ay aad u kala baqaan dhinacyadan iyo talaabooyinkan waliba la qaadayo iyadoo oo loo arkayo inay si xoogeysanayaan dhacdooyinka taagan waxa xukuumaddu ay qaaday mid kamid ah talaabooyinkeedii ugu waaweynaa waxay ka jawaabtay xaaladaha guud ee la galay iyo marxaladaha kala duwan taasi iyadoo oo jirta ayaa haddana waxa soo taraya dhaqdhaqaaqyada aadka u xoogan ee la xiriira talaabooyinkan taagan iyo arrimaha kale ee quseeya si gaar ah deegaanada Somaliland waxa ay Somaliland qudeedu ay xooga saartay sidii ay u dardargelin lahayd qorshaha la xiriira talaabooyinkan waaweyn ee culus taa oo ah mid kamid ah talaabooyinkii ugu waaweynaa ee xukuumaddu ay u qaado sidii ay u dardargelin lahayd ama ay xooga u saari lahayd iyadoo oo ay sii kordhayeen dhaqdhaqaaqyadani Somaliland ayaa muujinaysa hadda in ay markaasi garab helayso iyadoo oo Mareykanku uu ka carooday waxa ka socda deegaanada Somaliland waxaana uu ciidan iyo hub culus bageeyay goobaha qaarkood isagoo heegan buuxa galiyay Mareykanku ciidamadiisa meelaha qaarkii ku sugan waxaana ay dhaqdhaqaaqyo ka bilaabeen aaga Berbera halkaasi oo Mareykanku ay ciidamo xoogan geeyeen dhawaan iyadoo oo kulankii ugu dambeeyay ee taliyaha Mareykanka ee Africom ama taliska Africom ee Mareykanka uu kulan ula qaatay Ciro ay ka wada hadleen arrimaha taagan Mareykankuna uusan marnaba raali ka noqonin waxyaabaha jira taasi oo keentay inay kordhaan dhaqdhaqaaqyadii jiray ama taagna maalmihii ugu dambeeyay iyadoo oo kulamada Cabdiraxmaan Ciro uu waday ee la xiriira talaabooyinkan ay sare u sii qaadeen Mareykankuna xilligan uu qaadayo mid kamid ah talaabooyinkiisii ugu waaweynaa ama ugu cuslaa ee uu uga jawaabayo xaaladda gobolka Awdal ka taagan si gaar ah magaalada Saylac oo Djibouti Ethiopia
iyo sidoo kale dowlado kale oo Turkiga iyo Soomaaliya ay ka mid yihiin ay isku kaashadeen sidii Somaliland deegaanadeeda xasarada waaweyn iyo culaysaad siyaasi ah ay uga abuuri lahaayeen taasi oo lagu tilmaamay waliba inay hadda tahay mid kamid ah kuwii ugu cuslaa ee tallaabo ahaan ama la qaado iyo qorshihii ugu weynaa ee dhacdooyinkaasi si gaar ah u xiriira xukuumaddu waxa ay kordhisay dhaqdhaqaaqeedan waxaana ay sare u qaaday qorshaheeda gaarka ah balse waxa tallaabooyinka kale ee la qaaday ee lidiga ku ah dhankoodu ay abuureen cabsi iyo xaalado aad u culus taa oo keentay inay kordhaan dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeya ama qorshaha aadka u xoogan ee soo tarayay mudooyinkii ugu dambeeyay xukuumadda sidoo kale waxa ay tallaabooyinkeeda qaarkood muujinaysaa hadda in la qaadayo dhaqdhaqaaqii ugu weynaa ama tallaabooyinkii ugu cuslaa oo ay hadda uga jawaabayaan xaaladan Mareykanka ayaana waxa uu saraakiishiisa ee markaasi howlgallada gaarka ah fuliyay qaarkood uu u dirayaa Somaliland si ay uga hortagaan xaaladan qatarta ah ee deegaanadaasi ka taagan iyo marxaladii ugu dambeysay ee lagaga jawaabayo xaaladahan culus ee soo kordhayay mudooyinkii ugu dambeeyay si gaar ah waxa aad isku soo taraya dhacdooyinka waaweyn ee taagan iyada oo ay Mareykanka iyo dhinacyada kale ee Somaliland taageero qudoodu ay bixinayaan qaadista iyo fulinta qorshayaal waaweyn oo aad u culus taa oo ka dhigan inay kordhayaan tallaabooyinkan soo tarayay mudooyinkii ugu dambeeyay dhacdooyinka waaweyn ee la xiriira arrimahan ayaana sidoo kale muujinaya inay kordheen qorshahan iyo dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeya ee taagan iyadoo aan la ogeyn waxyaabaha xigi kara ama diiradda la saarayo iyadoo oo la qaadayo waliba tallaabooyinka qaarkood xukuumaddu waxay sii kordhinaysay qorshaheedan gaarka ah waxaase aad isku soo taraya wararkii ugu dambeeyay dhacdooyinka waaweyn ee hadda taagan iyo macluumaadka kale ee la xiriira dhaqdhaqaaqyadan taagan ama markaasi sida gaarka ah isku soo taraya iyada oo xukuumadda Somaliland ay saraakiil gooniya dhankooda u xilsaareen arrimahan waxaana saraakiishaasi oo uu hogaaminayo taliyaha militariga Somaliland ay bilaabeen inay guda galaan xaaladda gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Saylac halkaasi oo ay goordhow oo maanta ah shaaciyeen Somaliland in bandow ay ku soo rogeen haddana waxa ka jira culays siyaasi ah oo weyn taa oo ka dhigan in ay markaasi baqdin xoogani wali ka jirto deegaanadaasi qaarkood oo tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee la sameeyaba muujinaya in ay dhaqdhaqaaqyadu ay siyaadeen waxaana aad isku soo taraya dhacdooyinka waaweyn ee arrimahan la xiriira xukuumadda Somaliland waxay kordhinaysaa qorshaheeda gaarka ah iyo qaadista tallaabooyinkeeda degdega ah waxaana sidoo kale hadda u muuqataa in la qaadayo tallaabadii ugu weyneed ama xogihii ugu xooganaa ee la xiriira qorshaha gaarka ah ee arrimahan markaasi sida goonida ah u quseeya Mareykanku waxa uu qudhiisu qaadayaa tallaabo kamid ah tallaabooyinkiisii ugu waaweynaa ee uu uga jawaabayo marxaladan hadda jirta iyo xaaladaha kale ee ku gadaaman isla marxaladan oo gaari kara heer ka sareeya heerka hadda ay joogaan dhaqdhaqaaqyada socda iyo tallaabooyinka waaweyn ee taaganba intoodaba waxay yihiin kuwo waxyaabo badan ka bedelaya arrimaha siyaasiga ah ee Somaliland qudheeda hadda haysta xaaladihii ugu dambeeyay ee taagan dhacdooyinka qaarkoodna waxa ay gaareen heerka ugu sareeya taa oo baqdin xoogan ku abuurtay dhinacyada kale ee Somaliland taageerada buuxasiya Mareykanka hadda waxa uu isagu ka carooday waxyaabaha socda waxaana uu sababay in markaasi uu qaado go'aan aad culus isaga oo fulinta go'aankaasi qaadistiisa iyo tallaabooyinkan kale ee la xiriira dhaqdhaqaaqyadan aadka u xoogan intuba ay isku soo tarayaan si degdeg ah waxaana la qaadayaa sidoo kale hadda qorshaha ugu dambeeyay arrinkan la xiriira iyada oo ay sii xoogeysanayaan dhacdooyinka taagan macluumaadka xasaasiga ah ee soo ifbaxaya iyo tallaabooyinka Mareykanku uu qaadayo oo ah mid kamid ah kuwa ugu waaweyn ee uu diiradda saarayo si gaarana markaasi hadduu uga jawaabaya xaaladda guud ee taagan taa oo Somaliland qudheedu ay aad uga carootay waxyaabaha socda marka la eego iyada oo bandow ku soo rogtay deegaanada qaarkood ee gobolka Awdal waxaana ciidankii ugu badnaa oo Somaliland ka tirsan la geliyay heegan buuxa iyada oo ay qaadayso Somaliland mid kamid ah tallaabooyinkii ugu waaweynaa oo ay ku difaacayso deegaanadaasi kadib markii ay ka war heshay in ay duulaan ku yihiin dhinacyo kala duwan
oo loo arkayo hadda inay yihiin kuwaasi cadowga Somaliland waxaana ay tallaabooyin degdeg ah hadda u qaadaysaa xukuumaddu sidii ay uga hortagi lahayd qorshaha arrimahaas la xiriira dhacdooyinka waaweyn ee taagan iyo dhinacyadan kala duwan ee doonaya inay qaadaan qorshe halis ah oo ay ku qalqalgelinayaan deegaanada gobolka Awdal oo xaalado culus ay ka taagan yihiin. xogaha la helayo ayaa muujinaya in si gaar ah markaasi loo qaaday mid ka mid ah tallaabooyinkii ugu waaweynaa ama ugu cuslaa oo Somaliland ku dheedu ay qaadayso waxaana ay banduugan ay ku soo rogeen dhinacyo kala duwan oo tallaabooyinkan wax ka waday iyada oo si gaar ah diiradda loo saaray qorshihii ugu dambeeyay iyo tallaabooyinkii ugu waaweynaa ama ugu cuslaa ee dhawaanahan la qaaday. Somaliland waxa ay xoog saaraysay dhawaanahan dhaqdhaqaaqyo iyo tallaabooyin la sheegay in markaasi tallaabadani ay ka dhigan tahay inay kordhisay qorshaha ugu dambeeya ee la xiriira dhacdooyinka waaweyn iyo tallaabooyinka kale ee sida gaarka ah ama joogtada ah u soo ifbaxayay maalmihii ugu dambeeyay. xogaha la helay ayaa intaasi ku sii daraya in Somaliland ay markaasi u qaaday tallaabadani si degdeg ah iyaga oo ka jawaabaya xaaladaha halista ah ee deegaanadaasi ka taagan iyo waliba marxaladaha kala duwan ee la xiriira dhaqdhaqaaqyadan isu soo taraya si gaar ah markaasi tallaabadani sii kordhinaysay. xogaha la helay ayaa muujinaysa in markaasi ay tallaabadii ugu weyneed oo ah mid ka mid ah kuwii ugu cuslaa in ay markaasi ku dhaqaaqday oo ay kaga jawaabayso xaaladan hadda jirta iyo dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeya tallaabooyinka waaweyn ee culus ee isu soo taraysa. xogaha waxa markaasi ay muujinayaan in ay markaa ay kordhinayaan dhaqdhaqaaqyadan iyo tallaabooyinka ugu dambeeya ee sida gaarka ah isku soo taraya waxaana si degdeg ah ay u muuqataa xilligan tallaabooyinkan in ay kordhinayaan iyada oo ay si markaasi joogto ah muddooyinkii ugu dambeeyay ay u socdeen qorshayaasha kala duwan iyo tallaabooyinka aadka u culus oo ay hadda u muuqato in ay markaasi ay si degdeg ah u sii xoojisay dhaqdhaqaaqyadani iyo tallaabooyinkan kale ee la xiriira dhaqdhaqaaqii ugu weynaa iyo qorshihii ugu xooganaa ee hadda la qaaday. dhinaca kale waxaa Jabuuti qudheedu ay saacadihii ugu dambeysay waday abaabul xoogan iyo dadaalo ay ku doonayeen sidoo kale in ay markaasi xoojiyaan dhaqdhaqaaqyadani waxaana tallaabadan ay tahay mid ka mid ah kuwii ugu waaweynaa oo ugu cuslaa waliba lagu tilmaamo hadda inay yihiin kuwa kordhiyay tallaabooyinka dhaqdhaqaaqyada iyo go'aanada culus ee soo ifbaxay. xogaha la helayo ayaa muujinaya in ay markaasi kordheen dhaqdhaqaaqyadani waxaana ay sare u sii qaaday tallaabadii ugu weyneed ama ugu dambeysay oo ay markaa hadda si degdeg ah u qaadeen waxaana ay tani ka dhigan tahay in ay korortay dhaqdhaqaaqyadan oo ah kuwo markaasi aad isku soo taraya. waxaa xogihii ugu dambeeyay waana markaasi mid ka mid ah tallaabooyinkan ugu culus ee xilligan la qaadayo. bandowgan degdega ah ee Cabdiraxmaan Ciro uu amray ayaa lagu tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah kuwii ugu cuslaa ee xukuumadda ay saarto deegaanadaasi waxaana laga hortagayaa cid kasta oo dhaqdhaqaaqaasi abuuraysa sidaasina ay keentay tallaabooyinkaasina ay sii kordhiyeen waxaana ay sidoo kale tallaabadani u xoojisay dhaqdhaqaaqyadan sidii ugu dambeeyay ama tallaabadii ugu weyneed oo ah mid ka mid ah kuwii ugu cuslaa ee loo qaado qorshaha kama dambaysta ah ee arrimahan la xiriira. si gaarana waxay muujinaysaa in tallaabooyinkani ay kordhinayaan qorshihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyadii ugu waaweynaa ama macluumaadkii ugu xooganaa ee la xiriira tallaabadani iyo kuwo kale oo badan oo markaasi soo tarayay muddooyinkii ugu dambeeyay. waxaana ay tani keentay inay abuuranto in markaasi sidoo kale ay kordhaan
tallaabooyinka kale ee culus ee la rumaysan yahay in markaasi ay ku hoos duugan yihiin waxyaabo kale oo waaweyn. Somaliland tani waxay u qaadaysaa si degdega waxaana ay markaasi kordhisay dhaqdhaqaaqyadeeda ugu dambeeya tallaabooyinkeeda waaweyn ee culus ee la qaadayo iyo qorshaha joogtada ah ee arrinkan ay kaga jawaabayaan, iyadoo xaaladii ugu dambeysay ee hadda la qaaday intaba ay yihiin kuwo sii kordhiyay dhaqdhaqaaqyadan hubeysan iyo marxaladahan kala duwan ee laga baqdin qabo inay markaasi kordhiyaan tallaabooyinkan iyo kuwo kale oo aad u culus. Somaliland hadda waxay kasii dhigaysaa mid ay si degdega uga jawaabayaan xaaladahan kala duwan ee marxaladan weliba sida gaarka ah u muuqata hadda inay tahay mid ka mid ah kuwii ugu waaweynaa ee la xiriira dhacdooyinka taagan iyo shaqaaqadii ka dhalatay xaaladihii ugu dambeeyay ee sida gaarka ah markaasi isku soo taraysay. Xogahan waxaa sidoo kale ay muujinayaan in markaasi ay tallaabo weyn u qaadaan dhacdooyinkan iyo kuwo kale, waxaana xaaladani ay tahay mid ka mid ah kuwii ugu waaweynaa ama ugu cuslaa ee loo qaadayo dhaqdhaqaaqyadan iyo kuwo kale oo sii kordhinaya xaaladahan kala duwan ama tallaabooyinkan ugu dambeeya ee hadda taagan. Si gaar ah waxaa soo taraysa go'aanada degdega ah ee xukuumadda Ciro ay ku dhawaaqday iyada oo ay si gaar ah u qaadeen mid ka mid ah tallaabooyinkoodii ugu waaweynaa ama ugu cuslaa oo marxaladan ka dhigtay mid sii kordhinaysa dhaqdhaqaaqyada xooggan ama tallaabooyinka waaweyn ee hore loo qaaday. Si gaarana xukuumaddu waxay ku celcelinaysay maalmihii ugu dambeysay inay qaadayso qorshaheedan aadka u culus ee degdega ah oo ay kaga jawaabayso xaaladaha kala duwan ee hadda taagan, waxaana Ciro uu mar kale ku dhawaaqay go'aan u muuqda inuu yahay mid lagu xoojinayo tallaabooyinka ka taagan deegaanadani oo ah kuwo markaasi isu soo tarayay muddooyinkan, iyada oo sare loo qaaday dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeya xaaladaha kala duwan ee dhacdooyinkan la xiriira iyo tallaabadii ugu dambeysay ee ay ku dhawaaqeen dhinacyadani kadib markii dhowr maalin kadib lagu dhawaaqay mid ka mid ah qorshayaashii ugu waaweynaa